Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahey waan idin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelkayga Mona's Home. Waxaa maanta inoo wadaa cunto boobsiis ah. Qada iyo casho ayaan rabaa hal mar inaan dabkaan isla saaro, waqti badanna aanan igu qaadanin. Hal suuga ayaan rabaa inaan qadana ka dhigo, cashana ka dhigo. Marka hadda alaabtii aan u baahanahay dhan ayaan soo diyaarsaday. Digaaga shafka ayaan soo jarjaray, basal ayaan soo diyaarsaday, xawaajiyadii iyo yoogar yar aan u baahanahay inaan isticmaalo. Marka waxaan ku bilaabayaa suugadeeni basasha ayaan soo diyaariyay, waa soo jarjaray. Basasha waa kana wax yar ayaan shiilayaa. Intaan shiilayana biyaha baasto ayaa dabka sii saaranayaa. Saan idin sheegay waqtiga ayaa aad iyo aad ugu yar. Marka qadadii iyo cashadii hal mar ayaan rabaa in aan isla boobsiiyo. Basasha waxay markay ii gaduudato waxaan ku darayaa digaagii oo diyaarka ahay oo aan horey usoo jarjaray. Dheer ku sidaarta ayaad u jajaran kartaa. Intaan ayaan rabaa wax yar ayadana inay soo gaduudato ee isku shiilanto. Digaagani yacni waqti badan ma qaadanayso. Marka waxaa laga yaabaa almost 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo inaan sugo. Kadibna waxaan ku darsanaynaa xawaajiyadii oo aan soo diyaariyay. Waxaan isticmaalayaa maraq digaag, waxaan isticmaalayaa wax yar oo xawaaji duduku shiidan. Waxaan kaloo isticmaali doonaa barbarooniga shiidan oo gaduudka iyo kaari, xawaaji kaari ayaan isticmaalayaa. Intaasi ayaan isku qasayaa. Marka biyaha intaysan iga gurtanin ayaa waxaan sameynayaa maasha Allah xawaajiga ayaan ku darayaa. Biyaha wax yar biyo yar ayuu dhalisaad arkaysaan. Biyaha intaysan iga gursanin ayaan ku daray xawaajiyadii. Kadibna kaameradii ayaaba iga dantay, laakiin waan idin tusayaa. Waxaan ku daray crème fresh saad u jeedaan. Crème freshkan half ayaan ku daray. Waa 5 deciliter halfkiis ayaan isticmaalay saacadani. Kaameradii ayaa iga dantay, raali noqda. Wax yar ayaan sugayaa, wax yar markaan sugo maasha Allah waxaan soo qaadanayaa birtaabo kale. Anaga basbaas ayaa rabnaa inaan ku darsano. Ilmana waa rabaa inaan siiyo, marka basbaas ayagu uma darayo. Wax yar oo tomaatada shiidan oo kajabka loo yaqaano ayaan ugu darayaa. Wax yar ayaa dhowr qaand ayaan ugu shubayaa birtaawada kale. Birtaawada kale markaan ugu shubo kadib waxaan ugu darayaa ayaga kajab. Anagana waxaan ku darsanaynaa basbaaska. Suugadii waaba inoo diyaar, waqti badanba ma qaadanin. Ayada dhan waxaa laga yaabaa inay dabka saarnay 10 daqiiqo. Abta channelkeena ku cusub aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa. Mar walbana waan idinkaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad ii daawataan. Markaad wax yar ilmihi ayaan ugu guray ay ku qadeeyaan. Anagana basbaaskana ayaan ugu darayaa. Ayagana wax yar kajab ayaan ugu darayaa. Suugada waa inoo diyaar, baastada waa inoo diyaar. Waxaa markaa cashadii ayaa inoo xigta. Marka suugada hadda way badan tahay waan kala haafinayaa. Qaybna qada ayaan rabaa inaan ka dhigto, qaybna casho ayaan rabaa inaan ka dhigto. Barbarooni iyo basal bis ayaa ii dhiman oo korka aan ugu darayo. Kadibna maasha Allah cuntadeena waa diyaar. Waan idin tusi doonaa say ku soo baxday. Waa kana maasha Allah qadadeeni waa inoo diyaar. Baasta yar ayaan ku cunaynaa. Barbarooni yar ayaa gaduud iyo basal caadi ayaan isticmaalay oo korka aan ugu soo shubay. Ansalaadkii iyo mooskaadii maasha Allah qadadii waa tana. Qada iska fudud, waqti badan aanan qaadanin. Maalmaha aad koo kala u mashquulsanaa waxaan jeclahay cuntooyin fudud, waqti badan aan iga qaadanin jikada maanta aan taagnaanayni. Qadii casho aan u isticmaali karo in aan sameysto oo iska fudud yihiin. Marka waan idin wadaagi doonaa cuntooyin sidaan oo kala. Hadda marka cashadii waxaan rabaa suugo yar ayaa inoo diyaarsan in aan ku cuno malawax. Marka malawaxani wax badan waan idinkaaga sheekay video waan ka soo sameeyay. Waa malawax oo boorash madow aan ka sameyn doono. 3 ukun ayaa soo diyaarsaday. Cusbo yar ayaan ku daray, sokor dhan lagu ma taabanayo. Dad badan ayaa yacni waxay aaminsan yihiin malawaxa sokor haddii lagu darin in uusan gaduudanaynin, laakiin insha Allah maanta ayaan idin tusin doonaa. Burcad iyo waxaan isticmaali doonaa boorashka madow oo qamadiga madow waan soo shiiday ayaan isticmaali doonaa. Waa kana waan ku daray iyo caano. Intaas ayuu ka kooban yahay malawaxiga maasha Allah. Aad iyo aad ayuu u fiican yahay. Caanana waan ku darayaa. Intaas bis ayaan ka kooban tahay. Uma baahna wax sokor ah. Sokor la malawax oo gaduudanaya. Aniga ayaana insha Allah idin la wadaagi doono oo idin tusinayo sidoo ku soo baxay malawaxeena. Waa kana si fiican markaad isku qastid. Hadda waxaan aagaynaa xagga birtaawada saad u aragtaan. Malawax waxaa la rabaa yacni qafiif inuu ahaado. Marka biyo xataa kuma dareysid. Waa cusbo iyo ukun, 3 xabo ukun iyo boorashka madow iyo wax yar oo bur. Intaas ayaan iskugu daray. Korkan waxaan ka marinayaa subaga maadaama subaga aad iyo aad ayuu u gaduudinayaa. Subaga oo doolshooyinkii waxaas cuntooyinka lagu darsado waaye. Kor ayaan ka marinayaa.
wuu gaduudinayaa. Intaasi ayaaba ku filan. Waa bilaa sokor maadaama dhanaan lagu cunayo. Ilmahan maxay maasha Allah aad iyo aad ayay uga helayeen. Gabadha badan ayaaba feedback iga soo bixi mala waxaanay oo dhaheen ilmahena way cunayeen maasha Allah. Calooshan wuu socodsiinayaa. Mana la dareemayo mala waxa caadiga yani wax uu ka tuugayo ma lahan. Indhihi ayuu ku yeelanayaa, wuu ku gaduudanayaa. Maasha Allah idinkana waad ila arki doontaan. xabadii noogu horeysay waaye maasha Allah waad arki doontaan sidoo ku soo baxayo gaduudkiisa indhihiisa inaba caadi maahan. maamo walba soo tijaabiyay ayaan idin dhihi lahay. calooshan wuu idin socodsiinayaa. caruurtan aad iyo aad ayuu caafimaadka ugu fiican yahay. marka straasheer ayaan iska marinayaa. haddana kii labaad ayaan ku shubayaa. asina waa casheero iska fudud. hal mar inaan jikada aan galo, hal mar aan ka wada baxo ayaan jeclahay. qaasatan maalmahan aadkaan u mashquulsanahay. marka qadadii iyo cashadiiba maaragtay hal mar ayaan wada sameeyay. nus saac ka badan bay iguma qaadanin. suugadii 10 daqiiqo ayay dabkii saarneed. dhinacna baasta ayaan ka saartay. suugadii markay ii degtane mala waxaan dubay 20 daqiiqo. marka cuntooyinka saan easy-gaane insha Allah waa idin la wadaagi doonaa. waxaana aad iyo aad idinkaaga micid celinaya 10,000 inaad ila buuxiseen. jazakallah khair ayaan idin leeyahay asxaabteyda. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin adduunka meel walba aad ka joogtaan. maxay ahayd dhiirigelin ayay anigana ii tahay. waxaan dareemayaa howl fiican in aan haayo. aad iyo aad ayaan idinkaaga mahad celinaya walaalahayga macaan adduunka meel walba aad joogtaan. jazakallah khair ayaan idin leeyahay. marka mala waxaynaysaan ayaan kusoo dubayaa. markaasaan aan kusoo dubo waxaan idinla wadaagi doonaa insha Allah final product ayaan idinla wadaagi doonaa asxaabteyda. alxamdulillah kana mala wixii waan soo dhameeyay sidaan ayuu ku soo baxay. waa mala wax oo boorashka madow qamadigan ka sameeyay. saad arkaysaan maasha Allah soo gaduudanayo. sokor kuma jirto. aad iyo aad ay caafimaadku ugu fiican tahay. caruurta qaasatan calooshan way ku socodsiinaysaa maadaama aan ku darnay boorashka madow oo qamadiga laga sameeyay. marka waa kana asxaabtii cashadii waa diyaar, qadadii waa diyaar. saacad badanna maysan igu qaadanin. jikadan wax badan ma aanan taagnaanin. isla markiiba nus saac ayaan ku diyaariyay qado kululumac iyo casho kululumac. marka cuntooyinkan oo kale waxay aad iyo aad ii anfacdaa. maalmahan aadkaan u mashquulsanahay oo jikaba aanan ka gaarin in aan wax badan aan taagnaado. suugadii iyo mala wixii waa kana sidaan ayay ku soo baxeen. suugo maasha Allah macaan badan oo aydan kariimi ah waaye. koobkayga shaahiga ayaan soo diyaarsaday. waa kana marka asxaabteeda inaad ka heshan ayaan rajeynayaa. xilliga aan busy aan ahay sidaan cuntooyinka u kala qorsheeyo ayay kamid tahay. cuntooyin fudud waqti badan aan iga qaadanaynin. hal marna yacni jikada aan ka wada baxayo ayay kamid tahay cuntooyinkani oo nus saac ayaan kusoo wada koobay qado iyo casho. aad iyo aad u mahadsantihiin sida qurux badan oo mar walba aad ila socotaan iyo dhiirigelintiinaba. insha Allah videogan inaad ka heshan ayaan rajeynayaa. haddii aad ka hesheen hanaga hilmaamin inaad subscribe, like iyo share aad na siisaan iyo commentibo. dhiirigelin weyn ayay inoo tahay. khayr ayaan idin dhaafay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.